gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna musharaxa madaxweyne ee xisbigaas oo maalmihii u dambeeyay socdaal ku kala bixinayay deegaanada gobolka saaxil iyo togdheer ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay galbeedka magaalada Berbera deegaanada ku teesan jidka isku xidha magaalooyinka Hargeysa iyo Berbera waxaana kamid ahaa deegaanada sida weyn loogu soo dhaweeyay degmada Laaskeed Madheera maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo wafdiga socdaalka ku wehelinayay iyo gudoomiyaha gobolkan saaxil ayaa ka warbixiyay soo dhaweynta ballaaran ee uu kala kulmay guud ahaanba gobolkan saaxil musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiiro xildhibaano aqoon-yahan cuqaal qaybaha kala duwan ee bulshada haween dhamaantoodna waxay si weyn u soo dhaweeyeen isla markaana taageero ay u muujiyeen xisbi xaakimka kulmiye iyo musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi أقبل من الصوماها شارع على ما نقول أقبل من الصوماها إلهي سبحانه وتعالى وانكبرنا من مستقبل كمان تدو إن إلهي نور ما يو أينو ويلي من مسديها عدينا ونغضم من أغليناها ما نتدو آمين ده يا هوشا ما تلقتي هذه وحن نقول هاد عليا كدوميها دقمة بربراء عبد الشكور عدين oo isna xoogana la garab taagnaa degmada Madheera si fiican mar soo afgarnay waa hadalka waxa weeyaan wayna sugaysa degmada Laaskeedna oo kulay inteena qadab intageena taageero weyn baa muujisay ilaa iyo meeshii qabri gorada aan tagnay ilaa iyo meesha la qoytay ilaa sheekh ilaa halka dadku ma kala doonay xagaana dawaa sii taxayahay oo la soconaa markaa maxaa haray gabagabadii waxaa hadalka soo afmeeray kana mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee uu kala kulmay gobolkan saaxil musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi cabdi waxaana kamid ah hadaladiisii dadka iyo horimarayay togdheer oo dhantan malayay magaalo iyo miyiga iyo inta ka sokaysa ilaa halkan boqolkiiba 60 waa dhallinyaradana mustaqbal bay doonaysaa waxaan doonayaa laba qodob istaago dhallinyarada maanta dalkeenu duruufuhu maraayo dhallinyarada iyo dadka waaweynba laba qodob baynu la gudbanayno inuu raacno inaynu taariibino iyo inaynu tabcaadno labadaasaa dhallinyarada isu ka garab yaalla ma jiro bini aadmiga cid tacab iyadoo aanay tabcanin ama iyadoo hawl aanay qabsanin ku daarto ku dharta horaa loo waayo dhallinyaradana waa hawl waa shaqo dhallinyaradana waxaa waajib ku ah inay fakradaha raacaan oo ay hawsha qabtaan anagu kulmiye ahaan markaanu khibrada rugnay shaqo waxaynu ku helaynaa innaga oo dalkeena aaminna ilaahayna kaashanna duruufaha adagayna hor yimidna eegna seenu xallinayno dalkeena roobka wuu ku yaraaday xoolahina way sii yaraadeen haddana waxa laga helay waa tacab nolosheenna xoolo qura ku tirsanay waxaynu u baahannahay oo lagama maarmaana inaynu u guuro habka oo xoolaha loo dhaqaayo oo ah in xoolaha la fariisiyo geediga laga fariisiyo cabdirashiid mubaarak cabdi cabdirashiid suur telefishinka caalamiga RTN magaalada Berbera